Assalaamu calaykum kusoo dhawaada kanaalka Xogsiin Media. Noqo qof isku kalsoon. Waa maxay kalsoonida nafta? Kalsoonida nafta waa inaad dareentaa qanacsanaanta awoodda naftaada weliba adigoo aan ahayn qof isla weyn. Kalsooni laguma tilmaami karo inaad dadka iskala weynaato ama aad u aragto wax liita, bal taasi waxaa lagu tilmaami karaa kibir. Kibirkan Allah subxaanahu wa tacaala kaliya ayuu u sugnaaday. Haddaba halkan waxaan kula wadaagi doonaa 5 qodob oo kor u qaadi kara kalsoonida naftaada. Noqo qof aaminsan naftiisa. Ma jiro qof ka caawinaya markasta oo u baahan tahay garab, balse mararka qaar waxaa loo baahan yahay inaad aaminto naftaada si aad u noqoto qof isku kalsoon isla markaana caawiya naftiisa. Aqri buugaagta. Haddaad jeceshahay inaad kordhiso kalsoonida naftaada, isku day inaad aqrido buugaag badan, gaar ahaan kuwa ka sheekaya toosnaanta qofka, diiniga iyo horumarinta qofka. Shaki kuma jiro in aqrinta buugaagta ay saameyn wanaagsan ku leedahay kalsoonida qofka. Noqo qof isku daya inuu qabto dadka kale waxay sameyn waayeen. Allah subxaanahu wa tacaala bini'aadamka ma simin, waana 5 furood oo kale. Haddii ay taasi jirto, maxaa diidaya inaad qabato dadka kale waxa ay qaban waayeen? Kama wado inaad qabato arrin mustaxiil ah ama aan caqligal lahayn, balse waxaan ka hadlayaa wax bini'aadam kula mid ah uu qaban karo ama uu horay u qabtay. Allah tala saaro, go'aan adagna qaado, waad qaban insha Allah. Noqo qof qadariya dadka kale waxay sameeyeen. Ku qadari qofka walaalka ah wuxuu qabtay, waayo taas waxay caddeyn buuxda u tahay kalsoonida naftaada, waxaana noqon doontaa qof la jecel yahay kaasoo ka dhex muuqda bulshada inteeda kale. Noqo qof istaageera mar walba oo ay naftaada soo wajahdo caqabado badan iyo weliba guuldarrooyin, ha noqon mid halkaa ku hara. Naftaada u sheeg erayo dhiirigelin ah, sida inaad ku dhahdo naftaada waan gaarayaa hadafkayga insha Allah. Halkaas ayuu ku egyahay mawduuceena. Tan iyo intaa ku kulmi doono mawduuc lamida kan, waxaan idin rajeynayaa khayr.